أشهد أشهد I testify I testify أن لا إله لا إله 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 إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness that there is no deity and nothing worthy of worship except for God alone. I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Allahu Akbar. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. usoo noqod wanaagsan saaxiibayaal, maanta waxaan inoo wadaa mowduuc aada muhiim u ah. sidaan dhammaanteenba ognahay, diinta islaamku waa diinta ugu dhaqsiyaha badan dhanka koboca ama koridda diimaha adduunka oo dhan. haddaan si kale u dhaho, waa diinta ugu faafidda badan diimaha adduunka. sida laga soo xigtay xarunta cilmi baarista ee loo soo gaabiyo PEW, haddii isbedelada dadka ee hadda socda ay sii socdaan, yacni sida diinta islaamka loo soo gelayo hadday sii socoto, islaamku waxa uu noqon karaa diinta ugu weyn. sidaa darteed, maanta waxaan idiin soo gudbinayaa liiska 5 shakhsi ee caan ah kuwaas oo qaatay diinta islaamka sanadkii hore ee 2020. haynoo bilaabato. shakhsigana koowaad waxa uu noqon doonaa insha allah Jay Balfrey. Jay Balfrey waa wiil YouTuber, sawir-qaade, safraa, filim sameeye dhalinyaro ah, una dhashay dalka UK, kaasoo safarkiisa ku aadan diinta islaamka uu soo bilowday markii uu go'aansaday inuu safar ku maro adduunka. Balfrey waxa uu u safray wadamo badan sida Masar, Turkiga, Hindiya, Ciraaq iyo wadamo kale oo badan. Balfrey ayaa bilaabay inuu barto dhaqamo kala duwan maadaama uu u safray wadamo fara badan, sidoo kalena bilaabay inuu islaamka barto, waxaana soo jiitay diinteena sharafta badan ee islaamka. wuxuuna bilaabay inuu rumeeyo kali ahaanshaha Allah subxaanahu wa tacaala iyo fariinta islaamka ee nabadda. 16 Agoosto sanadii hore ee 2020 waxa uu bartiisa YouTube soo dhigay muuqaal uu ku qirayay shahaadada isaga oo ku sugan mid ka mid ah masaajidda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. shakhsigana labaad waxa uu noqonayaa Daud Kim iyo xaaskiisa. Daud Kim, qofkaan hore u aqoonin, waa YouTuber caan ah oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, kaasoo shacbiyad badan ku leh baraha bulshada. waxa uu soo islaamay dhammaadkii sanadkii 2019. Daud ayaa dadka yaqaana waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay qof degan, aadna u furfur. Daud Kim intii uusan YouTuber noqon ka hor waxa uu ahaa heesaa, islaamkana waxa uu ka aaminsanaa wax aad u xun. sidoo kale dadka muslimiinta ahna waxa uu u haystay dad bahallo ah, waa sida ay warbaahinta caalamka ka faafiyaan islaamka. waxaa laga soo xigtay Daud inuu yidhi, waxaan ku dhex jiray nolol mugdi ah, waddada keliya ee aan kaga baxay mugdigaasna waxa ay noqotay islaamka. Allahu akbar. akhbaarta wanaagsan ayaa ah November 16, 2020 xaaskiisa ayaa iyadana soo islaamtay. waxa uuna soo geliyay bartiisa YouTube-ka xaaskiisa oo shahaadanaysa. shakhsigana saddexaad waxa uu noqonayaa Mr. Watwa. Mr. Watwa sidoo kale waa YouTuber Nigerian ah, kaasoo ku dhawaaqay islaamadiisa 20 Agoosto 2020. Mr. Watwa muddo 2 sano ah ayuu baarayay diinta islaamka, ugu dambeynna waa uu ku qancay. wuxuu ku noolaa magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Mr. Watwa waxa uu bilaabay mihnada YouTubernimada sanadka markuu ahaa 2012. hore waxaa loo yaqaanay Richard Kandel, haddana waxa uu la baxay Cabdullaahi Uuni. waa YouTuber sida aan wax yar ka hor soo sheegnay. waxa uuna YouTube-kiisa ku soo gudbiyaa isaga oo ka falcelinaya islaamka, wuxuuna aad ula tacajabay dhaqanka muslimiinta. shakhsigeenna afraad waxa uu noqonayaa Silvio Romano. Silvio Romano oo hadda loo yaqaano Aisha Romano waa 25 jir u dhalatay dalka Talyaaniga. Miss Romano qof caan ah may ahayn ka hor inta aysan qaadan diinta islaamka. waxay u shaqaynaysay hay'ad samafal oo lagu magacaabi jiray Africa Mille. 20 November 2018 waxay ku sugnayd gudaha dalka Kenya, gaar ahaan tuulo lagu magacaabo Shakama, deegaanka Kilifi haddaanan dhawaaqa qaldin. iyada oo ku sugan hotel ay deganeed ayaa waxaa soo weeraray rag hubeysan, halkaasi ayaana laga soo afduubtay. Aisha Romano waxa ay xorriyadeeda dib u heshay sanadkii aan soo dhaafnay 2020 bishii May. mar ay ka hadlaysay qaadashadeeda diinta islaamka ayaa waxa ay tiri, ka hor inta aan lay afduubin waan ka duwanaa sida hadda aan ahay, maxaa yeelay xilligaas wax xiriir lama aanan lahayn Allah subxaanahu wa tacaala. markii ay yareed waxa ay sheegtay inay fikir khaldan ka haysatay diinta islaamka. markii ay aragto gabdho ku labisan dharka xijaabka, waxay u arki jirtay in la caburinayo gabdhaha. waxa ay sheegtay maalmihii xigay ee afduubkeeda, iyada oo ku jirta qol ay ku xirnayd, weliba xilli habeennimo ah, ay markii ugu horreysay maqashay duqeyn cirka ah
oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka fuliyeen halkii ay ku xirnayd. Waxa ay sheegtay inay aad u walwashay oo ay ka naxday inay dhiman doonto, qoyskeedana aysan dib dambe u arki doonin. Waxa ay tiri, waxa aan ku ducaystay, Ilaahayow i badbaadi, waxa aan doonayaa inaan mar kale arko qoyskayga. Waxaana ay sheegtay in xilligaasi ay ahayd markii ugu horreysay oo ay Allah subxaanahu wa tacaala si toos ah ula hadashay. Markii uu Allah i badbaadiyey, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan u laabtay una mahadceliyey. Wixii habeenkaas ka dambeeyeyna waxaan go'aansaday inaan Allah subxaanahu wa tacaala u dhowaado. Caaisha waxa ay sheegtay intii ay ku jirtay gacanta kooxdii afduubatay in ay bilowday barashada iyo fahamka Qur'aanka Kariimka. Waxaan dareemay kalsooni ilaa markii dambe aan jeclaaday diinta Islaamka. Mar walba oo aan Qur'aanka akhriyo, waxaan dareemayay inuu Allah subxaanahu wa tacaala aniga si toos ah ila hadlayay. Ugu dambeynna waxaan Qur'aanka ka helay wadadii saxda ahayd. Alxamdulillaah, ayay kusoo gabagabaysay waraysiga. Shakhsigeena shanaad ahna qofka ugu dambeeya waxa uu noqon doonaa Youngswold. Taariikhdu markay ahayd 2 bishii January 2020, YouTuber caan ah oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Youngswold ayaa ku dhawaaqay inuu qaatay diinta Islaamka. Diinta Islaamka ayuu bartay si uu u helo jawaabo badan oo uu in muddo ah raadinayay. Waxaan rumaysanahay inay ahayd doonista Allah subxaanahu wa tacaala inaan noqdo qof muslim ah, ayuu yiri Yong. Sida caadada ah, Yong ka hor inta uusan soo islaamin, fikirka uu ka haystay Islaamku ma ahayn mid wanaagsan. Laakiin ugu dambeyntii Yong waxa uu helay jidka toosan waana uu soo islaamay. Taawada muuqaalkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada kale haddii aadan ka helina kuma qasbanid. Sidoo kale waxaad commentiga noola wadaagtaa haddii aad barnaamijyada noocaan oo kale ah aad ka heshay. waad mahadsantihiin. waa inoo muuqaalkan muuqaalkiisa xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.